sababtoo ah dadka ay ku ag dhashay marka sidaas aawadeed aan aamusi waayey in lifeka soo kaliftay waa gartay anina waa walaashay waaye cabdisalaamna waa walaashay waa gartay marka waxaan ku weydiinaa horta gabadha waraysigeeda arkay iyadoo leh ilmo aan dhalanna ma jirto qof i qabana ma lahan kolley cabdisalaan xilliguu guursanayay taariikhda way iga maqan tahay laakiin waxaan jeclahay horta dadkii bariiska wax ka cunaya waxaa u maraysaa codkaa soo laalaabanayo codkayga ma soo naqano si saafi ma maqlisiyo kii hore soo laalaabanayo ilkaadib way dhegahanaan gashana si fiican si nadiif ma maqashaa okay waad warniyow run maa isku sheegaynaa horta mise beenaa la sheega ma bariiskii aan cunaynay dadkii arooskooda ma hadda la dhahoyaa macnaha waa haddii aan run ka hadalna wahayd waa marka bariiskii iyo xalwadii aan ku cunno soos maa la dhahoyaa hadda dadkaas dad isqaba ma ahan mise ilmo iskuma dhalin horta arrinta waxa iga jaahil bixin horta iga jaahil bixi horta sheeko se u kala socdo waxa waaye horta waxa la arkay bala markaa ku dhahay saas waaye ani waxa iga hor muuqda adiga iyo kulu iga hor muuqda habeenkaas yani muusiga meesha laga shiday heesta aa ku dheelayseen iyo wixii oo dhan iga hor muuqda heesta tii la shida iska dhaafay baabuurta xataa arooska lagu galbinayo marka niyo waxaa horta qofka bini aadamka waxaa la rabaa horta wax macquula in la sheego ma fahan marka dee odayaal badan horta way ku jiraan qadka caawo kolley caawilna wuu ku jiraa dad badanna way joogaan marka insha allah bal waraysi saasuu noogu soconaa adduunkan aakhiro horta adduunkan waa laga tegaya si fiican sababtoo ah waxa waaye adduunkan waxa waaye wax ku nagaanayaaba yarba haye marka aniga horta labadeeda garbood malaa'iga qofaan u heelay ma jirto wallahi maantana malihii cabsanaan qaldan iyo haniyaa qaldan ma laga annaga ujeedkeena waxay tahay labada qofood way isqabi karaan way isfuri karaan laakiin ujeedka aan leeyahay waxay tahay labadan qofood ee soo wada mareen waa la kala tegi karaa waxa waaye dhib ma leh ha kolley dadka gadaal ka soo galay waxaan rabaa inay horta barnaamijkan caawa aan ka hadlayna ay tahay cabdisalaan iyo hani oo ayaantanba social media isdhex socdeen tiktok ha dhihin facebook ha dhihin meel walba la wareejinayay marka dadka qadka ku jiro caawo labadeena ani cabdinaasir markhaati aan ka nahay dad badanna way ku wada jiraan meel waxaan ka imaanay la leeyahay hurwaay mise soos qofka yaqaano dadka dhan meesha iskula soo koreen marka waxaan usoo galnay caawa livekan mise aan ugu hadlaynaa waxay tahay inaan caddayno horta dadku way isfuri karaan way isqaban karaan wayna kala tegi karaan family haddii layahay waayo ilkii caraba isku dhow way isqaninaan ma garad marka midda keli oo rabno caawa aan ka hadlaynaa waxay tahay inaan caddayno dadkaas in dad famil jiro ay yihiin ilmana ay isku dhaleen kolley arrinteena waa intaas ma garad waa taas waaye aniga waxa aan ka hadlayba taas ahba yani heblaaya saxsan iyo heblaaya qaldan maahan waa isqabi karaan laba qofood way isfuri karaan waxaan heshiis waa laakiin codkaada iyaga gooy cabdinaasir may maqlaysaa waxa aniga waa ugu soo laalaabanayaa codka okay cabdinaasir aadaa u mahadsan tahay waraysigaas oo qiimaha badan aad macnaha caaw bixisay mise ummadda soomaaliyeed aa u qeexday mise aad u sheegtay in macnaha arrintii ayaamahan laisdhex waday aad u bayaanisay hani in ay macnaha caruur ay leedahay cabdisalaanna uu qabo macnaha oo reerkaas reer jira ay yihiin dadkii macnaha aad u caddaysay aad iyo aadaa ugu mahadsan tahay kolley waraysigan sii wadi doonaa intii maxay ahayd markhaatiyaashina waa soo qaban doonaa insha allah aad iyo aadaa u mahadsan tahay cabdinaasir maadan mudan kolley barnaamijkeena waa noo sii socdaa markhaatiyaashu way badan yihiin
faana wala fara kama qodnaa la yidhi bal waa soo wada qabanaynaa insha allah caawa master cawil aawa cawil kuma jeedi aawa master cawil aaway cawil yare aawa cawil yare aaway cawil aaway oo mashquulayaan u malaynaa cawil kolley barnaamijkeenaan sii wadi doonaa caawa mawduuca barnaamijka waa arrin ayaantaanba social media dhex tiilay oo laisku haystay macnaa reer isqabay in la dhaho dadkan isma qabaan gabadhana ay tiri maxay ahayd la ima qaba ilmana ma dhalin kolley reer soos aa ku wada jira caawqadka gabadha meeshay kusoo barbaartay qadka ka wada jiro anigana aan kow ka ahay arooskii dadkii raashin ka cunay mise muusig ka dheelayay mise ku baashaalayay aan ku jiraa wax walbana way cad yihiin kolley wax la qarin kara ma jiraan faarax ay soo galay hadda okaadi faaraxan soo qabanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورماد يورا صاحب war faarax saaxiib iyo warasee tahay ne waa la kala dhumanaya waa la kala duqooba umalayna saaxiib لونج تايم والله بالله والله يا بيا كودي haye may maqashaa faaraxo may maqashaa ني عدكاغو سو لالابنا cabdinaasirna saas uu dhahay caawa maxaa ka qaldan codka sugu dhegahana bixina iyo kaadibal mar may maqashaa helo faarax helo faarax مقلا waxaan ku yiri haa waa ku maqlaa hadda may maqashaa ku maqlaa bal warbixin laga sii bacaawa warkan unaka warniyahow shay waa la yaaban yahay يا بيا كودي waa gartay horta baryahan waxaan arkaynay youtube-ka oo wax ka socdaan anigoo kusoo baraarugaba waxaan kusoo baraarugay ayadoo gabadhiyo youtube fadhiisoo dhahaysa iyo cabsalaan oo aqaano iyo hani oo aqaano ilaa soomaaliya ilaa iyo la degnin oo aeroboortka aan geyna habeenkii haa yaab kale wuxuu ahaa gabadhii uga dacwooday inuu xaaskiiseeda oo asaga soo kaxaysto uu keensaday Italia ilaa iyo Sweden keena oo tiri limana guursan ilmana ma dhalin haa wallahi ni horta waxa waaye bacdi ma sheegi karno ama haddee kala tageen ma sheegi karno laakiin inta ogeen inay u dhashay 8 cunug si fiican saddexna Soomaaliya ku dhashay saddexna Soomaaliya u saqiireen labana ay la timi Sweden صح saddex kalena ay Sweden ku dhashay سفيان yaa haddana maanta waxaan arkay gabadhii oo dhahaysa aniga totally maba lay guursanba ilmahana maba dhalinba سفيان marka subxaan allah waxa waaye inuu ceeb alla asturo annaga waxaan rabnaa inaan u caddayno dadka soomaalida ah صح oo youtube-ka ku arkay caddaynayna haddaan nahay reesoos ahaan in ay gabadhaas wiil walaalkeena ilma u dhashay 1998 سفيان sagaashan iyo sideed guursadeen سفيان annagoo ilmo yaraan meesha bris ka cunnay arooska habeenkii waa foodeynay adiga iyo kulu iyo isheeg xayeysi allah u naxariistay gurub badanaa meesha ka ciyaaray سفيان marka cabsalaana walaalkeena khayr allah siiyo cabsala cali xaashi iyo hani muumin gale kabacdi laba qof waa isfuraan
waana kala tagaan waana isla joogaan ma fahanti si fiican laakiin haddeertaan waxaan arkaynaa gabadhii oo nin kala dhahaya waa xaaskaygi waa subxaanaka ya qaba cadiim si fiican marka subxaan allah ilaahay hana hanuunisho ilaahay ayadana waxa waaye ha loo duceeyo in ilaahay ayadana cudurka ku dhacay ka saaro niyow aan kaa dhexgalay faarax horta hadalka adaa ku wato horta adduunyadan waa iska dhib badan tahay qof waxaa arkay horta wadamadan qurbaha waa aragtay xoogaa stressa iska jiro qofkii maskaxdiisa say u joogtay waa uu isbedeli karaa qofka horta waxbaa ku dhici kara ma garato horta reer soos ahaan soos qof ka imaado horta qof inkiri kara maba jiraba ma fahan reer soosna waa is yaqaanaanoo maanta qof gaadi karo qofkan ma ihi mise kama imaan horta dhihi kara ma aha caaw dhan horta annaka waxaana soo kicisay mise aan maanta usoo galnay meeshaan waxay tahay in meeshii bariis aan ka soo cunnay arooskii muusig ku soo ciyaarnay ilaahay ku roonaaday meeshii wanaag iyo sharaf iyo reerreen horta looga soo tagay ma fahan marka kolley ilaahay horta waxaan u baryaynaa horta in isku soo celiyo gabadhan hadday xanuunsan tahayna caafimaad allah siiyo kolley horta wixii qaladan allah og laakiin waxaa bulshada loo caddaynaa mise caawa aan usoo jeednaa waxay tahay in macnaha wixii ay jiraan gabadhan inay cabdisalaan u dhashay caruur ma fahan marka arrinta kolley hadalkaada adoo soo koobahay dad badanna meesha way ku jiraan oo waxaan rabaa hadda inaan soo wada qabto bal insha allah soo qab صح gabadhan horta waxay ilaahay intuu waa si wada hadalkaada waa wadan kartaa hadal yani horta arrinta runta waxay tahay ilaahay igu og yahay xaqiiqda ah in gabadhan ilmaha u dhashay cali xaashi si fiican gabadha inkirayso hani soomaaliyan ku aqaanay ilaa yaraanteeda aqaanay hadda markay nairobi isla degnayn comoron isla degnayn way soo baxday sweden ay timid yaaflay degnaayeen ayada iyo ninkeeda iyo kulli waxa waaye waa isku dhaqnaayna marka waxaan leenahay loo duceeyo ما هو دعاء واحتريس إن شاء الله إن إلهي مركا نيو إن شاء الله أصحابتك أنا أبنينا إن شاء الله كل إن شاء الله السلام عليكم وكبع أصحابتك الأبناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يا ما سنة أي والله أي أوكي قاسي فارح وهاي أدي أيوة ما تسيي هاي يا غير صوص أو ماشان وحلو قبهاي هاي غير صوص صومالي وإذن سلامة دمانتين وعلى الرباء غير صوص أسد سوق أبوه يا ورنيك أضيق عنه كجرا عامش ورسال صوص على الرباء غير صوص أو شنويل أنتو كبح شنويل بالا أو عام شنويل بالا أو عام عويل مال وقلي عاو ما الله يبر عويلو ما جيفته ولا عويلو انتاج شيء وارياه عويلو ولا الحقيقة شيء كله وينو دميه ورئيسية duraan iyo afay iyo laaje waxaa waaye dad badan aan oo dhiman insha allah iyakana waa soo qaban doonaa cawil maxamed cali xayle soo dhawaaw waa soo wada qabanaa insha allah haddul qaataan la sabro insha allah waa soo wada qabanaynaa in allah la intiqato ku jirto oo reer soos ah
الله سفره. السلام عليكم. ورما هذا إيه ورا سيتا قري واي كوري وعليكم السلام. سيتا في عنده لون تايم نو سي والله لونج تايم. سيتا عافماتك. وحواي آدم في عناي صاحب ورتو آدم وقحوم هاي أرنتا أن هذا ماشي أسوي ما نهدان نهري صوص واقر ومصيبة نقول عادي أي كمية هاي ما أنت بس وضع لإيش شيء كمان يا ما فهمت واقرت دنا وادد قرصومي كرا دنا وادد عن قرصومي كريم تفيعا عبسلان يهني السلامة دي صوص معناها وإنا تري هذا ديو معناها واحد مسكح كلا معناها واحد بالعادة كنا نحكي حتى إلى هذا هو ديو عقدك تمفهمت في لبونات أنا روينا شغل بلا ما فهمت معناه أنا والله واي أنا الليبان اسكو بحشواي الليبان حتى لا إله إلا الله ورتل أنا وإيد النيدا كل الدنيا نيجي جوا أركتي مع كلها ما دتك وحر رصاص وح سوكع شيء أو عاوة هل كان هو ذا جيران أنت سما فهم إن برشة وح لو شيء والله هرتوري ما شاء الله وبنتها معهن عبسنا ما توقع عوان وعواسيل ويني شركة دون ريال فلوا وعي تفهم معناها دتك دون وابرجع حسين فهمت قف كان مركز ورئيسته أتري هذا وأرنتنا المقلي محاجره بحكولية وأرنتنا المقلي ورسالة يوتيوب كان كلا أرداي وحنا يوتيوب لو كعسنا هي أرنتنا محيطة مركان دهاني بحلين قولي يوتيوب بكشي كينو سابع أنا جيابه ورير سنبا مسكتي أنا بعد وين أنا قلفت يعني فهمت سفيعا مركا أرتوري إلهي حق عنه وفانسيو قبل ولاشين هدي وحكا قلدين ساعة في ملعان وسير المقاليمة أنا أقلنا وهالشيء كذا أنا أقلنا حالة دي ضبطة سفيعا لسكما هايو مسقبي جيرين مس يقانين ما ددان نقانو روسكودي جوغني waxa waaye noloshooda aan naqaano ilaa abka able ilaa hadda taagan aan fahanti magaalada Sweden deganaa ma sheekadii hadda macnaha waxa horta socdaan YouTube-kii aan ka arkay meelo badan macnaha gabadha inay tiri Cabdisalaan iska badhaafe ilmo ma haysto ma fahanti ilmo ma dhalinba waa maqlay waana arkay waana dhageystay anaga ka reer soos ahaan maanta horta hadda cidna attack kuma nihin cidna weerar kuma nihin wax kaliya aan rabna mise dadka inaan u cadeyno horta wax inay jiraan ma fahanti waa sax waa runta waana wax jira waaye Cabdisalaan ilmaha saa dhalay gabadhaasna ilmaha ayada dhashay waa dad magaaladaas la wada yimid dad isku guursanay Sweden ma ahan ilaa waxaan u sheegaynaa ummadda oo sida ilaahay nagu og yahay tahay inaan si dhab ah u naqaano oo magaalada Sweden deganahay cidna la wareysanayna wixii YouTube ku kala kacsanayay iyo dad kale iyo wixii wadaan horta qofka ilaahay dartiis wax u raadinayo qofka horta fees ku raadinayo horta taas say qosaysaa ma fahanti وعنا وعاول جيدا دي يوتيوب ليدا أنا كعاو هرتي ليكو أنا ما هذا واسنا قان أنا قلت مركز الدوران باكي هذا ليجو ورقال جروب بدنا كنا أضياشة ولي ما كان مفهمت أنا وحاول ربع هاد دتك هرتي إنا صوّد قبنا هبين هاد وحاول تهرت حلة دنبي وتهاي يار هاد ماشان كومنت كسو قرايان وجيدي حلة دنبي وتهاي رسول سعدان ويري لكن وحن جعلنا مالنا عدي إنا صو قرنو aan soo wada qabano intii ku jirta intii kale marka arintan ilaa ay meelka koreyso min macnaha cadeemihii aan soo badino oo dadkii wax walba ogaay marka kulli waxa waaye waa ducay kulli ducay naga mudan tahay waa u ducaynaynaa ma garatay waa u ducaynaynaa ninka Cabdisalaan waxa waa xalwadi aan cunaada inay loostaay inay caadi tahay ani hadda caadan u jeedaa ma fahantaa rooski والله ويابا أنا يا بابا وعوا أنا يابا واحد مركي هني إلا هدو يقدر داعي إلا هذا أرنتان أنا والله إلى اسمك يا أخونا ويقدر داعي إلا هذا هاي واحد الصوّع عير طول جو ورسوس آيو ينورجريو هني يا واحد يمكن يسا عبدالسلام ويابيا يروحون محاقلدن هني عبدالسلام ما يجلس كنا كنا الله في سكو أجريني ضدك أوبح سكو أجر وسلام وكرد بخلص لا أجري ما لا يشي كيس كذا والله دad jaceelkooda kabikush kabixamya filinki hidiga camal ay soo wada
marka waa horta wax walba ay dhacaan horta adduunkan wax walba la fiishtaa ma garat marka gabadha waxaan is leeyahay arrinta anaga laftigeena waxa waaye waan ogaanay waxay jawaabteeda aan baan siinayna waxaan leenahay waa isnaqaanaa dad wada dhashaanahay haddii wax naga halaabeen hoos aan u dhaqanayna walaasheen marka aad iyo aad u mahadsan tahay niyow dad badan qadkay ku jiraan waa soo wada qabanaa niyow aadan kaaga mahadcelinaa waraysigaa ma fahanti ana siis aad iyo aad maad aad u mahadsan tahay soo qaban insha allah walaalkay hay caafimaad insha allah hay salaam calaykum barnaamijkeeni waa noo sii socdaa meeshiisa kolley sayid maxamed faarax okay caaw reer soos aa laga rabaa meeshan reer soos inay runta sheegaan wixii ilaahay ku og yahay wixii ilaahay ku og yahay aa la rabaa reer soos inay sheegaan caaw waxaan way jiraan iyo ma jiraan iyakaa laga rabaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan waa jiraan iyo ma jiraan aan laga rabaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واكو سلام قدومي وعليكم السلام مشتاق ما ديوان halkay في عنده عافمادك ورن نوض الحمد لله waa fiicana الحمد لله arinii oo kulay social media waa aragtaa u maleynaa arinta caawan ka hadlayna ma fahmi aad iyo aad oo arkay oo aadana ku xumaa anigoo halkii Cabdisalaan anoo yar ah ayaan arki jiray horta Cabdisalaan iyo shanaamada iyo anoo galay waa gartay gabadhan oo arki jiray shanaamada irideed la taataagay oo lacag loo gali jiray aad iyo aad fiican xaqiiqdana de wax walba way iska cad yihiin waa gartay oo wax la inkiri karo this world maanta la joogo waxa waaye baaritaanba uma baahna star inay tagaan DNA ga cunuga iyo ayaga iska baaraanba ugu filan inay cadeymo heli karaan cadeymo nool haddii la rabane anagoo dee isla xaafadii ah oo xaqiiqda iyo runta og reer soosa DNA anaka DNA qof kale soo raadina anaga DNA ah wax lagu murmi karo ma fiican marka wallahi wax walba waxa ka wanaagsan dee gabadha in loo duceeyo la dhaho dee walaal dee dembiya gashay halkaan loogu sii loo diintana loo sheego ducadana lagu akhriyo dee ciyaalkana la dhowro qalbigooda iyo niyadooda iyo social media iyo waxaan dhan laga ilaaliyaba ma insha Allah waxa waaye horta wax walba ducada wax ka weyn malaha marka kulli waa u duceyneynaa mideeda kala marqaatiyaashii horta waxaan jeclahay bacaaw oo meeshan ka cad in marqaatiyaashii ay mar kam ka dambeeyo u soo galo marka reer soos walba is jeclaayeen haddana waxaan jecelnahay waana ay khayr ku dhamaadaan ma fahantaa arrintan aad iyo aad insha Allah ilaahay khayr ku dhameeyo marqaatiga noolna anaga ahba ma insha Allah oo reer soos ah hal xaafad wada deganeen xaalad walbana ka socota sax waa inuu aad iyo aad odayaan aan leenahay dhalinyarana aan leenahay fiican aad iyo aad u maashintaa sayid saaxib aadan ku salaama ay walaalkay hay salaam calaykum okay faanol faraka ma qodno marqaatida waa soo daba dhacaysaa kooya imaano koo kala soo galo kooya imaano koo kala soo galo reer soos wax dhiman ilaahay abuuray malahan caaw hurdada tartiib ay usoo kocayaan ma fahamta marka insha Allah qofkii lasoo qabto iyo qofkii kale bal ha dul qaataan dadku way badan yihiin islama gaaro halhalaa loo soo qabanaa aadaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waalaikum salaam walaalkay ma fiican tahay ii war maxaysaa alxamdulilah brother waa fiicanna niyo waa ku salaamaya horta inkastoo aniga aanan ahayn maxaan ku rahdaye reer soos soos laakiin reer Sweden ahay waa maasha Allah marka arrintan kulley waan la socday waxyaabo baraha bulshada ka socday waa arkay fiidiyoyada kala qeybsanay waa arkay kali waxaan rabay inaan fikir ka dhibto horta waxa kani wax sahlan ma aha hadii marba meesha tahay gabar xaas aheed oo ninkii iyo carruurtiiba isku inkirtay inkiraadii haddana ay u dheer tahay in nin kale uu meesha soo galay laakiin su-aasha meesha taagana waxay tahay
ninka waa dhageystay walaalkeen asagoo dhahay gabadha aniga ma furin oo xaaskayga ahayd taa horta waa dhageystay markhaatiyadii iyo wixiina hadda kulley dee dadka hadda hadlaya kamid ahaa markhaatiyada hadlayay ani marka waxaan ku talin lahaa maadaama arrinta halkaa ay gaarsiisan tahay in dadkii gabadhan ninkan horta halala taliyo hal dhaho bal xagga waxay dad soomaaliyaan nahay dad islaamaan nahay bal xagga culummada in lala tiigsado dalka aan joogno culamaa joogto magaalada erb sheekh yuusuf axmedaa joogo oo culummada ugu waaweyn reer sweden in lala tiigsado culummada oo wixii markaa markhaatiya ah lasoo bandhigo sidaasna arrinta loo guda galo wax dhibaato ah ma laha ninkan haddii gabadhan aysan rabin wuu iska furi karaa waa wax ma garat laakiin xoogo waxaa cusub walaalkay ma maqashaa soo taagan si fiican walaalkay horta aadan kuu soo dhaweynaa fikirkaaga saliimka aadan kaaga mahad celinaa niyow horta weligay horta life maana soo gelin meesha caawa arrinta horta na soo kicisay mise naga hadal siisaa waxay tahay horta gabadhan iyo wiilka maxaa kaa galaan isku naqaanaa ma fahanta si fiican arooska heesta shidneed xataa hadda way igu soo dhacaysaa tartiib ay igu soo dhacaysaa ma fahanta adiga si fiican marka niyow waxaan anaka dadka mase ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa maanta dad muslim oo diin lahaa nahay waxaan u caddaynaynaa keli waxay tahay in horta arrintan ay jirtay hani iyo cabdisalaan dad isqabay oo ilmo iska dhalay inay ahaayeen horta dadkaas midaasaan u caddaynaynaa ma garatay si fiican marka midda caawna soo fariisisay oan leeyahay macnaha igama ahan reer soos si kale igama ahan macnaha dadkii markhaatidii ahoo meesha joogay kii wadamada joogay iyo kii waddanka joogay saasay usoo garoyaan ma garata caawa si fiican marka waa arrintaas ilaahayna waxaan ka baryaa insha allah inay khayr ku dhammaato ma fahmi aad iyo aad laakiin maadaama walaalkayow hadda dadkiina markhaatiga furaayo waa dad qirayo gabadha iyo ninkan inay isqabeen carruurna isku dhaleen waa dad qirayo taasna kulley waxaan u malayaa dee hadda dalka aad joogno way ku sahlan tahay haddii maanta hooyo tiraado ilmaha anima dhalin ama aaba iyo ilmihi isku qabsadaan waddo loo maray leedahay sharciga waddankan ba aan joognaba meel marka la iska dhigo laakiin mid idinka aadan ogeyn ma jiri kartaa oo ah ninkan gabadhan iyo wiilkan inay kala tageen ma dhici kartaa tan taas waa tan u baahan in la baaro meesha isla degan yihiin yaaflo waaye horta saan warka ku maqlay daqiiqado ka hor wiil wuxuu ii caddeeyey in wax furiin la dhahay aysan jirin ma fahmi iyadana waa keenaynaa insha allah waalidka caddeyntiisa waa keenaynaa meesha hadda ay degan yihiin dadka degan waa soo gelin doonaa insha allah hadduu ilaahay idmo annaka waxaan u taagannahay mar walba waxay tahay wanaaga macnaha familkaas inuu dhisnaado ma fahmi wax fiican weeyaan halkaas ka wada marka insha allah aad iyo aad aa u mahadsan tahay dad badanna way ku jiraan kolley way ka dhiiban doonaan fikradahooda iyo markhaatiyaashina hadda way isoo wacwacooyaan aadan kaaga mahad celinaa walaal macaan aad iyo aad walaalka waa mahadsan tahay assalaamu calaykum okay waa sii socdaa kolley insha allah reer soos hurdada hala kaco reer soos hala kaco صاحب عاول موجود عاول مال وقلي عاول مال وقلي عاول مال وقلي أنا وجهد إلهي أبو رمله فرعاولوا كصبح اللوق السلام عليكم سلام الله عليكم مات وعليكم السلام ولالكي مات عبد العزيز سير ولالكي سيتا في عندها عفمات كورن الحمد لله في عنا والله والد دقوبني والد دقوبي والد بدارستي بيان إن شاء الله بعد الله بدارته حتى عندي ماله ودك هذا ورديو والله وحرت مرنا فرحة مرنا مروقة أنا هرت بعد لواتن سنة يصد محي طوان يشان سنة ضدان أركين عاو أنتكو أركين سيد محو أذيقة ضد بدن أسد وكسوق بنا ولالكي وحر السوق وكسوق بنا إن شاء الله ولا marka ma hado wax badan meesha ma yaalaan annaga haddaan nahay dhalinyarada reesoos dadka waxayna weydiinayaan ahay cabsalaan iyo gabadhii ma kala tageen waxaas meesha ma yaalaan waa garta muhiimadda waxay tahay kala tag kama hadloon annaka haa ilkay caraba isqaliilo iyo cabsalaan cali qofka lagama hadlayo ها هاني مؤمن محمد iyo cabsalaan cali xaashi
ma yihiin dad micnaha isyaqaanay oo isguursaday oo ilmo isu dhalay taas haa annagaa ku dhaaranayna annagaa caddaynayna dee annagaa naqaanay oo sidan dee nafteena u naqaanay iyaga si fiican dadka marka ka hadlaaya oo dhahaya dee maxay ahayd oo ninkan naagta wuu keenay iyo ma oqoon iyo isku dhalan iyo anaga waxaana soo kiciye keliya waxay tahay in gabadhii ay dhahday hore liima soo guursan ilmana ma dhalin taasaan micnaa ilaa hadda la yaabanahay maahane dee gabar la furay iyo gabar ayada micnaa dooqeeda iska raacday waxaas way iska jiri karaan waxaas kama hadlayna xaashaa micnaha wuxuu marka waa intaas keliya waxa weeye youtuberada dee waxaas warniyo youtube sheekadiisa waxa way sidiisaba views raadis iyo wax ku kala kicis iyo horta meeshaan ma yaalaan ilaahay dartiis waa familkaas waana soo kiciyay haddana qofkii adi aad taqaanid oo haddana ku leh ka waran wallahi waxaan la yaabay tii oo aniga wax socon la waa ma fahantay wallahi aad ula yaabay wixii adiga u jeedid hadii la dhaha kawar waxaan oo saas ma aha marka midda oo naga dhaadhici weysa midaas waa ma fahantay waxaan dhici karin weyniyo waxaan dhici karin aniga macnaa markii hore waxaan maba aad ba mu aaminsanayn laakiin marka arkay iyadoo gabadh la wareysanayo dhahaysa aniga cabdisalaan ilmo uma dhalin mana i guursan dadweynihii hadda oo koobi ah isdhahaynio hadda dadkii waxaysan dhexmarooyaan marka maxaana maxay ahayd war iyo saanay ahayd iyo marka waxaan hadda caaw usoo galnay reer soos ahaan waxay tahay in la caddeeyo in hani iyo cabdisalaan isqabeen ilmana isku dhaleen annaga ilaahay wuxuu marag nooga yahay hani iyo cabdisalaan inay isqabeen reer ahaayeen oo xataa nairobi comrog markay deganeeda naqaanay faarax ka mid ahaa dadkii habeenkii soo bixaysay diyaaradda wax ka soo saaray dee dad badan oo aan boqolaal iyo kumanaan ah yaqaanay dadkan ma garanaysaa si fiican marka ma ahan wax oo hadda oo dee gacanta lagu dadi karo ama maaragtay hadalla inta la geliyo waxaas war la geli kara ma ahan cabdisalaanna wallahi waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol nin raga intuu sameeyo wanaag oo waxaan yacni inuu ka gaabsado isku dayay oo inuu maaragtay si hoose waxaan isaga dhammaan isku dayay laakiin dee 5 ciyaala oo hoodoodba ay leedahay maba dhalin taasaan niyo dee wax laga aamusi kara ahayn maahane nin rag intuu aamusay ma garat ma insha Allah waxaan ku jecelnahay kulley waxaan jecelnahay intaasi in ka badan inuu sii wada ma fahanteen dee qofkaan naqaanay hanidaan naqaanay maaragtay ma ahan wallahi qofkaan wallahi waa qof wax aad uga duwan weey ma garat ilaahay marka iyadana niyo sidee saaxiibkay aad iyo aad kaaga mahad celinaa horta aragaan is aragnay xilli dheer aad soo dambaysay marka maad cabdicasaani aad isku dugsi ahayn ma yaxay ba sax waa si fiican waa barafkii waxa maskaxda ka galaniyo waa adno iyo dhaysa baasha marka insha Allah dad badanna waa soo qabanaa niyo insha Allah arintan ilaa imeelka koreysana kama jiifanano walaalayn waa garab taagannahay reer soos oo basan san isugu xirnaan isu garab taagneenan jecelnahay haddana inaan isu garab taagnaano aad iyo aad ku salaama hay maad ay dhamaan asxaabta insha Allah hay walaalkay hay salaam alaykum aw asad bedel aw asadow soo codso asad kuma jeedi asad nin culus caaw soo socdo ninkan reer soos miyaa mise ma aha waa lagu murmaa anaa ogbe warantuu ka baxay war waa istoorta miya waa ka xuma inaa istoorta mar labaad oo kusoo qabtay aye war ninaa soo socda magaciis lama sheegaya kolley markaa aragtiin idinkaa sheegi doonaa umaleynaa ninkan caaw soo socdo yaa way talo waa wareey السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهد دكتور عبد العزيز ولالكي قعري واكو سلامي أبو معانا عبد الرزاق حاشي قيدي صوص واي ولالو ولقي يا الله انت نوران لايف نمقرين يكو والله يا تاريخ دو يكو قرانتهاي ولقي لايف مسوقرين عاو كو أولا ها مركا ما هذا أبو معانا وأرنتاس هني iyo cabdisalaan aniga idinku arooskeedii sheegaysan guurkoodii dadka ka shaqeeyayana caruur yar ahaydeen idinka waa yaraydeen waa yar beenta ma maalintay hani soo galaysay ismaaciil afru xaaskiisa cambaray ku soo gashay baalka la yiraahdo Allah u naxariistay reer sheekh cali cibaar waa gartay
burleeg iyo baalkan la yidhahdo injineer cabdikariim burleeg iyo cambare iyo ismaaciil afro ay ku timid ismaaciil ninka la yidhaahdo halkaas uu ka bartay aniga iyo raaxe ayaa isbarnay waa gartay arooskooda anaa ka shaqeeyey waxaan ahaa dadkii guurkooda qabanqaabadiisa kow ka ahaa si fiican cunuga koowaad maalinta u dhalay aniga isbitaalka gudihiisaan deganaa adiga isbitaalka gudihiisaan deganeed nagoola sheekay maayo wiilkayga yarka ahayo gacanta kusoo koray ahayd waxa weeye cunuga koowaad habeenku dhalayay cawil jeego inaan inta wejeeda u maraynaa aniga iyo cawil jeego habeenkii waxbaan ka dhafraynay waa gartay isbitaalkii dhinacaan ahaayo hooyooyinka dhallaanka isbitaalka hooyada xumaado muuse haysatee maahan si fiican iyo aabbahaana uu dhakhtarka ka ahaa doctorka si fiican geedkii weynaa oo wareegsanaya habeenka aniga iyo cabdisalaam ku dhafrayn waa gartay oo hani aan ka sugayna marka niyow arrintaas waxa waaye waa wax mucjiso ah oo walaalkay cabdisalaam wax ku dhacay oo waxa waaye dhibaato caalami ah waaye reerkaas ku dhacday reer isjecel oo nadiifa oo boqortooyo ah oo sida ay u nool yihiin bini aadan u noolayn oo dhereg iyo dheef iyo dhibba soo wada maray bay ahaayeen waa gartay anaa ilaahay hortiis markhaati ka kacaya hani aniga qabowgan hadda 3 sano ka hor baa iigu dambaysay oo dadka xiriirka badbadan ma ihi adduunyada shaqaan iska cayrina 3 sano ka hor cabdisalaan iigu dambaysay aan la hadlay reer hani laftirkeedaan la hadlay reer dhaqan oo barakaysan oo nadiifa oo qurux badan weliba cabdisalaan waxaan kula kaftay wariyaa shurugaanku raaciyo maxaa wiilasha mar iigu samayn weyda waa ogtahay marka walaalow macaanow reerkaas waa reerkeenni waa gurigeenni waa guri aan annagu dhisannay waa guri aan naqaano baalkan la yidhaahdo hani reer aabaheed si fiican uma naqaana laakiin reer abtigeed reer sheekh cali cibaaraan tit by tit u naqaanaa oo adiguna taqaanaa oo qaf ilaa farasoo ugu dambeeyay allah u naxariistee marka walaalow gabadhaas waa gabadheenni waa walaasheen masiibaa naga qabsatay quraana qof walbaa meeshuu joogo quraan ha uga soo akriyo dayuuskan saaxiroolka ah oo reerka sixrayna qofkii gaari karaa ha dilo maasha allah horta qof walba horta wuxuu samaystay saa ilaahay hortiis kala kulmaayo mise adduunyo ha ahaato annaga hadda afaaro kala geli mayno waxaan u soo galnay caawa waxay tahay horta gabadhii in la caddeeyo cabdisalaan iyo hani in laisku caddeeyo horta midaas wax reer soos caawa ay soo kiciyeen mise aan macnaha sacaddan aan u soo jeedna horta waa intaas ma garata caawa barnaamijkeena aad iyo aad cawil jeega xataa waa ku jiraya u malayna wallahi aniga iyo waxaan cawil dhowr maraan fiiriyey waa la ahay caawa ha uu ku jira cawil waa ismaqalnay duraan mustafa cabdi daahir waa naga hooseeya raxmatullaahi caleyh gruubkiini weyn ka waaweyn aniga mustafa cabdi daahir cabdisalaan ilaahay kuma sama diidee cawil jeego beri waxaan isku dayaa inaan leejo soo qabto leejo inaan beri raadiyaan horta isku dayaa ma garata tawakal wuu joogaa saada kabanaasaa joogo afeyaa jooga ma fahanta warkaas waa dhan yahay marka niyow arrintaas waa arrin mushkila walaalo halkaas ka wad waa kugu boorinaa waa mahadsan tahay waa anigoo la yidhi hadda doctor cabdicasiis ma uusan dhalin mahad oo aan aqaano raadkaanoo soo fadhiisto dhaha waaye jaamaca la dhaha anoo dhahay doctor cabdicasiis ima dhalin oo shaqo kuma lihi aniga anoo saas dhaha waaye marka waxa suurtagalay marka waa mahadsantiin walaalo macaanow shaqaan ku jiraa halkaas ka wada barakooda aad u mahadsan tahay aad u mahadsan tahay walaalkay waa aadaan kaaga mahad celinaa saad macnaha quruxda badan aad ummadda ugu sharaxday from A to Z walaalkay aad u mahadsan tahay السلام عليكم أسد بدل أسد تذكوا بدين رالي هذا عدان كجاري وينو نجر رالي هذا هبين كلامه بلنا أسد صود البولال أنك سوقته صود البأسدو أبو يوسف موجود أسدو صود البولال عولو واجه فطي عول كومجيدي عول أنت كبحذي عول انت كبحد كوما جيدنيو اسد صوت البورالكيو ان كسو قبتي كوما جيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صدو ولا
ورا دوك سلامي walaalkay waa kaa qaada sankan waa kuu xiray oo family ah ما سوى في عندك قول له وراه ii warasee tahay ترى قول له فاعل ما تكور abuu waa fiicana alxamdulilah xaaladda ka waran ابو ادم كو فعل الحمد لله الهي قرقر ستاي wallahi walaalkay boqol waa fiicanahay dee caawa arrintaana taa lama fahan هينيو mawduuca waa la socotaa soo ma ولا صعد انيو marka insha allah bal caawa wixii reer soos ah waa isku qayla dhaansana ma fahan اما وكحمه صحا واحد دعي والله وحما ساكا صاحبك اللي بان اي شيء waa gartay ما هيد نيو ادم وحما ما قرت waa gartay marka hadee aqal wax aqal gali kara anka ma gaban arooskeedan jooga anka saxaab anigu haahe macnaha dadka waxay la yaabihiin adiga wax macnaha horta waxa la sheegaa moqtay wax ma fahanti laakiin wax macnaha ummadiyo dhan oo reer soos oo dhan meel degan hadii la dhaha ka waran maba jiraan ma wax soconay ma fahanti wax aqal gali kara niyo ma ahanba wax aqal gali kara maskaxda waaba ka weyntaa wax marka weligay awalan life waxaan u soo galay gabadhaas darteed iyo ninka la yiraahdo Cabdisalaan oo saaxiibkeen ahay inaan macnaha horta wixii jira aan u sheegno ma fahanti arrinta inay jiraan war gabadha arooskeedan jooga aniga fiiri arooskeedan maalintii la aroosayay irid ana taagnaa saaxiibo si fiican iridda dhalinyarada wixii soo daynayay sabti marka la cunayo ana taagnaano haye marka kii hadii oo ilmihii oo caawa oo soos markii la geenayo cunugii koowaad dhalanayna joogay xalwadii oo la cunayo inay loos ahayd inay caadi ahaydna kii cunay iridda kii joogay oo dadka soo deynayay marka waa kulley waxaa dhiman waa dareemi kartaa dadka dhimanna waa arkaynaa ma garad ما ولا أركايا وحنا وعقلي قلي كرمان صاحبك عبد السلام وحنا ليه صاحبك إساتك حق لي عفوا ملك لقى سوق قلي ممكن إسك سوق قلنا صاحب هذا وهذاك تهاي مركنيو وحنا ليه صاحبك عبد السلام وحنا وعقلي قلي كرمان والد عشقتي سحرك عشقتها ملها جيران أمرنا صاحبك قالية مرك إن شاء الله تعالى قبلنا إلهي ونوع فينا يا المهر مارتي ونوفع ناندور إن شاء الله صاحبك وحنا كعصنا هين وساتكيو الدنك وامتحان وامتحان على مرها يا adduunka raaxa kaliya ma saxaabo maalinba waxaa arkaysaa wax leen la kulmaysaa insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaan ka codsanayaa ciyaalka dhalinyarada xaafadda soos waxaan ka codsanayaa in cabdisalaam la garab istaago oo hili hooba loo muujiyo oo moraalka loo dejiyo oo la waco teleeminkiisa ani ma haya saxaabo maasho waa daahaysa iisoo dir insha allahu tacaala hadhow inboxkaan kusoo dhigaya insha allah informationkayga marka saaxiibka waa inaan garab istaagno maaragtay ii sheeg waa arrin aad u adag waaye 7 cunug naag dhasho ku dhahaysa weligii ilma ma dhalin oo inkiraysa insane والله sheekayaab le insane waa ninka tabcaanka oo dhahayana waxaas waa beenay naagteeda anaa raba dhahayana ka saaxiibo warkiisa u baahana maya baabkaas khayr allah ku sii ha gelid baabkaas ha gelin meesha qodobkeen inta noo taagnaada ma fahantay waa sax marka qodobkeen inta noo taagnaado qof kale annaka waa arrintiisa ma gelayno mana ku dambaabayno marka insha allah waxaan caaw u soo fariisanay misaan u hadlaynaa waxay tahay inaan cadeyno bes ma fahantay warkaas waa cad yahay gabadhaas hani waa cabdisalaam dheere xaaskiisa waaye waxa dhacayna waa qalad gabadhan allaha caafiyo kulley waa xanuunsantahay waan ku salaamaya mahadsowo salaamullahi calayk walaal dad badan aqadka igu jiro aadan ku salaama walaalkay macaan insha allah waa soo wada socdaan markhaatiyaasha macnaha midba midka ka dambeeya waa iska soo daba dhacoya koo dhaho iridaan joogay waa waardiyeynaya macnaha dadkaan soo deydeynaya koo dhahoy macnaha cunugii dhalinay anaa arkay oo waa la soo dhafray oo meesha wareegii soos maxay ahayd waxaan fadhiyay geedkii weynaa hoostiisa mid dhahoy macnaha wax aan 1 2 3 iyo 4 dhihi kara maahan marka insha allah waa iska soo daba dhacoysaa waa fiirinaynaa insha allah qofka kaloo xiga reer soos hurdada ka kaca hurdada halaa kaco asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barakaatu waa ku salaamaad walaalkay soo dhawow aadan kaaga qaaday warseetaan fiicanta aad iyo aad u fiicanahay maasha allah waaye waa ku salaama wallahi weligii qad ma soo gelin live dadka dhan saas waay qofaan qad soo gelin ma jiro oo maya waa iska galnaa laakiin qof live soo fadhiistay ma jiro caaw ma fahan والله أنا sidoo kale korkaas dadka kala socdaa aqyaarta korka aqaanatay oo reer soos ogaay heer iskalastuun inaad tahay andar urubro ahay marka wax macnaha oo aqligeyga iyo macnaha dadnimadeeda diiday ee noqotay in gabadha ana hadda markii ugu dambeysay waxay ahayd
2009 dhamaadkiisa راجل aatax yar la dhaho yaxye oo cawi lacag yar la sidii Australia inuu joogo maleyna aniga maxamed cali xili geesi laay maxamed yiriso yar laay xaafid Komarog la dhaho oo ku taala Kenya banaankeeda asla degnaa jiray ma fahantay سيفيان walaay maxamed cali xili iyo waa gabadha waa la caawi jiray ma fahmaysaa oo سيفيان ma sha Allah Cabdisalaan nin aan naqaano dadkii Browning markaa dheeli jirteen ciyaalkii jirsi jiraayeen oo naqaano qurdaad dhaxin oo la shay maxamed xaashi ilmaadeer ahay asxaabti macnaa dad oo reersoosna ogtahay dad jecel ما لا ديك ها ما لا ديك waxaan ha ما la qarin karo سيفيان markii wallahi macnaa gabadhii oo intaas aan naqaanay oo hataa markaa Nairobi joognay annagoo reersoos ahaan isku garab gashay markii wax u baahatay la caawi jiray meel walbo intaas waxa lagu sameeyay waxay aad inay Cabdisalaan xaskiisa سيفيان سيفيان marka reersoosna dad is caawiyo oo is jecel oo walaalaha mar walba ahaayeen marka aniga aqligeyga macnaa waxa diiday waxay tahay inay gabadha dhahdaba Cabdisalaan maba aqaanaba caruurteedii gabadheedii iyadoo gacanta ka saarga 8-9 jir ma xayd ma saxi karo sax ah gabadha midna xilligaas Komarooga degnaa jirna ma fahantay markii cunugta gacanta ay ka jirtay cunugteedii wiilka yar iyadoo hees maxamed cali xeel hadina qad dadka wax fiirsanaa inuu ku jira maleyna geesi ku magac dheer iyo aadka ma sha Allah rag aad ugu dadaal jiray ahayn marka waa la yaabay in caruurteeda ay inkarto waxba laakiin wadankan aad joogno wadan adigan aad joogtaa sharciga ka jiro maanta hadii oo iskaadka uu tago oo wuxuu soo heli karaa bishilinka bafiska caruurta ay dhashay meesha ay ku dhashay warqadii hooyadii dukumeentiyadeeda wixii oo dhan waa la helaa ma fahantay bashuun bafiski annaka ma fahanto horta ha annagaaba ahbaba laakiin ayada dhehaysa macnaa in oo ninkan wixii dhacday wuxuu iga kala gadanay macnaa way handadooya inaan qof u keenaa rabo hadalkeeda dhageysta nokta wax logic ah ma ila noqo way ma fahantay marka meeshan marka hadii maanta la tago caruurtii la dhalay mas'uuliyadeeda xiliyada ay xatay waxa la soo heli karaa imaam ladii ka qaadatay caruurtii dhish iyo sharcigeeda ma fahantay laakiin aniga waxa oo macnaa qoftan waxaas way xanuunsan tahay sida Cabdisalaan uu sheegay wala saxay maxaa yeelay gabadheedii ee gacanta ka jirtay ee jeclayd wiilkeedii maanta maba dhalin maba la soo gursan macnaa taas aqligeyga diiday wallahi walaalkeena waa dhibaataysan yahay dad badan oo waxa arkay oo maaragtay dadka YouTube-leeda ah iyo dadka dadka qoraba intaba macnaa dad oo mala awaal sameynaya arkay aniga waxa ku waa dad adin waa taqaana ani waa aqaana dhalinyaro badan qoftii xaqiiq ka rabto ani markii qof waxay weydiisan waxa dhaa qof reer soos ah oo aad taqaaniin hal raadiyo reer soos loo weydiin karaa sheekadan qof kale oo ka hadli karo ma jiro maad show adaa joogo dadka caanka ka ahay waxa jooga Cabdinaasir Fakte Tulaare waxa jooga Cabdisheekh Showiste dadka macnaa oo soo public figure ka ah ma fahantay oo hadda xaafadeena inta joogo jecel waa joogo ma fahantay dadkii iyo anaqaanay anaga maanta markii liiba xirsiga way joogo fahmaysa marka dad waa la helaa maanta ayada iyo isku naqaana laakiin waxa aqligeyga diiday ee tahay walaashin Ilaahay horta ha soo hadeeyo xaq Ilaahay ha tuso waa iyada maskaxiyan ahaan in lagu xadgudbo ma sheegi karno ما أنا كقفان كواحد قد بينه مجد حق إلى تصو ما فهمتي مسكع حق إلى تصو ولكن هذا أمات سنتاي أمات سنتاي وأنا أدنكم أمات سنتاي نلقي بشيء أدنى سيدو كله تغيار وحورته في سجرة مثلا كأركي أنا إيو قال إيو دمان وادي سلامة وأنا كمات سنتاي إن شاء الله ولكن الدعاء وأنا كاغم هاد علينا إنا هيفصوص سكوك كنتي أدي ما شاء الله دعاء أصوهاي ولكن آدم وأدلالي حي ولكن حي عليك السلام السلام ومرقاتياشا وصوص عدن ساس سوقبو كان والليلة أوكي عبد الناصر آوي مرقاتياشا وصوص عدن marqaatiyaasha way soo socdaan asad waa kana in hore isu keen dambeysay aa soo socdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum wacalaykum salaam asad see tahay maad waa fiican walaa buu ii waran walaalkay caafimaad ka waran waa fiicannaha wallahi long time brother adnigo bal kolley wixii aad ka og tahay dadkan walaalaheen ah insha allah oo dhibaatada haysato
marka inaad ka hadashaan rabaa insha allah mi maqle si fiican aan ku maqlaa adii dhalinyarada waad islaama walaalkay salaamullah calayk walaalkay ku soco wallahi niyo si fiican aan ku maqlaa adii mi maqle waa ku maqlaa si fiicanaa lagu maqlaa walaalkay wallahi niyo arrin masiibaha dhacday waxaan ka naxo oo amagaag ah ku noqday noqoto ma fahanta waa gartay marka walaalkay ani hani horta waa gabar walaashay waa marna waa dumaashidii cabdisalaan waa walaalkay muddo badana waxa waay hani agteeda waa soo joogay aqoon badana u leeyahay ilmahee dhashana waxa waay wax horta la inkiri kara maahan waa gartay hani markii ugu dambeysay ani aan saragno Sweden isku aragnay 2015 fiican cunugii u dambeysay hadda gabadheeda u yar markay dhaleysay Sweden ay joogtay aniga Sweden ay joogay ma fahanta waa gartay marka niyo markhaati ka nool waa badan yahay marka niyo lama dhihi karo gabadhaas ilmahaas ma dhalin marka aniga waxaan dhihi lahaa niyo way xanuunsantahay ilaahay caafiyo niyo sababtoo qof caafimaad qaba lagu markhaati furi karaa laakiin gabadhaas way xanuunsantahay walaalkay insha allah horta intii xanuunsan allah caafiyo laakiin caaw horta waxaan usoo jeednaa mise life aan ugu jirnaa mise aan juhdi mise dadaal u gelinayna waxay tahay dadweynihii Soomaaliyeed inaan u sheegno mise aan u cadeyno horta arrintan socoto ma runba mise waa been horta ma fahantay صح inta caafimaad ilaahay haayo horta ilaahay ha caafiyo insha allah marka intii kali aan ku doodayna horta intaas ay tahay yaa marka cadeyn kara waay yaa cadeyn kara horta beeta ma gabadha reer waa beri ma ahan reer xamarweyne ma ahan reer soosay degreed ma garad aad iyo aad waxa marka reer soosa cadeyn karaan marka intaas waa inta caawl isku hay ma fahantay may beeta ma waxa cadeyn karo waa reer soos waa reer hurwa waa dadkii yaqaanay marka abu taas shaki kama jiro inay hani ilmo leedahay cabdisalaan qabo 25 sano iyo 22 sano oo qabay marka wallahi gabadhaas waa dulmanta ilaahay caafiya abu allah ilaahay dhalinyarada soosna waa salaam abu insha allah asadow aad iyo aad ku salaama maadaama barnaamijka si fiican ugu qayb qaadato walaal waa salaamantaa asad sidoo kale walaalkay ayaa ay salaam calaykum sheekadu way socotaa markhaatiyaashana iska soo dabra dhacooyaan waxaa waaye kolley xamaadi cawilaan la ahay cawil kuma jeedi cawilow kuma arko cawilow kuma jeedini hurdumaa kula tagta saaxiibow cawil kuma jeedi cawil waa iga jeefataa umaleeyaa muku arkooy caaw salaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhawaaw dhawaa mahado ii warasa tahay waa waray walaalkay fiican tahay caafimaadka war nin la yiraahdo cali madaxii nin la yiraahdo waa ii waraniyo si fiican aan ku aqaana cali ii warasa tahay caafimaadka wallahi aadan u fiicana alxamdulilah hawaaye hadda ummad walba say u dhehaysa niyo life ma galno hadda dadkii oo dhan reer soos oo dhan waxay noqdeen dadaan life gelinay wada noqdeen ma garat may caaw dantaa ku kaliftay inay life soo galaan laakiin hadda banaanbax inaan sameyno waaye baashaan waxaa waaye waa banaanbax toosa waa ma garatay waa gartay niyahow ani cabdisalaan niyahow waana saaxiibkayga waana walaalkayga ma garatay waa gartay reer soosna waxaan aaminsanahay kulligood inaysan maxaa la yihahdaa aysan kala fogeyn oo walaalo ay wada yihiin ma garatay si fiican waxaasoo dhan waxaa ka daran niyahow oo barnaamijkaas hadda qof walba wuxuu haystaa hani ani waxaan aaminsanahay baasha inay hani ka weyn tahaan baa aaminsanaha ma garatay waa gartay horta ninkan waa sixirool waa warkiisa cid hadda dhahda waa sixirool ma jirto laakiin ani ninkan waxaan aaminsanahay waa sixirool yaa ma garatay hooyo ilmaheeda adoo raalli iga ah xoogaa aflagaadada iyo maya waa dareema laakiin waxaan aaminsanahay maya hadda social media waa ku wada jirtaa laakiin maado laftirkaad waxaa dareemi kartaa laakiin qofkaan aflagaadeyno diyaar uma nihin walaalkay raalli maya hadda maya waa dareema laakiin cidaan aflagaadeynaya horta maba jirto hani horta walaashaydu waaye aqoonaan u leeyahay soosay nala deganeed weliba in muddaa waxaan aaminsanahay dadka ka mid ahaa inaan ahay dhalinyaradii ka mid ahaa inta hani wax u doono ama gurigeeda geeyo ama cabdisalaan inta wax ka qaado guriga oo inta u diro alaabtaan qaada geey aan ka mid ahaa ma garatay si fiican
si markaas aan maxaa la yidhahdaa isheeg opportunity badan aan u helo cabdisalaan dhinaciisa uga helo marka alxamdulilah aniga horta waxaan aaminsanahay waxaasoo dhan hadda waxaa ka muhiimsan maadaama ay gabar naga maqan tahay horta inaan u duceyno inuu ilaahay caafimaad siiyo oo maxaa la yidhahdaa isheeg ayadoo noo nabad qabtay noo soo laabataan rajeynaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo dadka qadka soo wada galaya dhammaan reer soos ah intay isgarab istaagno oo maxaa la yidhahdaa arrinkan aan maxaa la yidhahdaa isheeg aan ilaahay kaashano aan u wada duceyno cabdisalaan aan garab istaagnaan rajeynaynaa insha allah hadduu ilaahay insha allah labadoodaba dad nala dhasho waaye waxaan jecelnahay in caawa aan juhdi u gelinoynaa mise waqtigeena u huroynaa waxay tahay in macnaha wixii cadna aan sheegno iyakana ilaahay isu keena ma garat may saas waxaan ka rajeynayaa insha allah hadduu ilaahay yidhahdo inay noo soo laaban doonto caafimaadkan ilaaha bixiyo waxaan ilaahay uga rajeynaynaa caafimaad degdeg aan uga rajeynaynaa dhammaan akhyaarta reer soos wixii daawanayo dhan waxaan ka codsanaa in loo duceeyo cabdisalaanna la garab istaago insha allah hadduu ilaahay insha allah walaalkay aad iyo aad ugu mahadsan tahay macnaha barnaamijka noo soo jeedisay aad u mahadsan tahay assalaamu calaykum asxaabay barnaamijka gunti iyo gabagabadii aan soo gaarnay kolley barnaamijkeena caawa intaan kuma saabsanaan doono wuu sii socon doonaa ilaa iyo arrintan aan meel ka soo saarno mukhtaar kuuma jeediniyo mukhtaaroo adaa ii dhibnaay aawey mukhtaaroo adaa ii dhibnaay yuusuf soo dhawow aawey yuusuf soo dhawow mukhtaaroo kuuma jeedi cawil wuu iga jeeftaan u malaynaa السلام عليكم يوسف. وعليكم السلام. السلام عليكم سوري نلقى إنت سنة إيه ورا فرسيت. لما لا يوسف وافي عنا حالتك ورسيتها. وافي عنا ورالك الحمد لله برواقه. عاود شاكده إنه وهير صوص وكل ولا سعتها وأنا كده ركسنتها مركب كسر برنامج إن شاء الله. والله برنامج خدام كسر هذا حال مركب أركي وابا أركي كحيبه. نك عبد السلام هذا مركب أركي هني أرنت هذا وحي لنا كتبه في الانواع. anigoo maanta cidna aan u gafeyno waxaan leeyahay horta walaasheena dee haddii la marin habaabeen allah soo celiyo ma fahanteen tan markhaati weyn waa ka nahay maxaa yeele gabadhaan ninkan inuu qabo waa la ogyahay oo caruur u dhashay markhaati weynaan ka nahay reesoos haddaan nahay hani muumin yah maxamed waxaan leeyahay familgaagi kusoo laabo waxa waaye dee qof bini'aadanka waa qaldamaa هذا قلد لغم صحو نكاس نولاركي وحن أقول نستحينا يا قبل أس إنه إسكسو دايو. تفعل. سكس تدي لو تهمايو. هذا إسكسو دايو كان هذا ضد كذا كسوع اليو يفهمي كذا. تفعل. ما فهمتين. ده رئيس محل ده مظاهرات يوم باقي لها سيد ولاركي يجهري الشيء إن لو ودي استعان جعلان لها. واقر. أرجع دينا كلام النقد. de umada kalena waxaan leeyahay de meediyaha dadka qaarkood iska lahaa hadlayno waxaan jeclaan lahaa wixii aflagaadaha inay ka reebtoomaan wixii wanaagaha dadka ay faraan labada qofoodba loo nasteexayo ma insha allah waa kulli horta caaw horta waxaan inta usoo galnay mise qof walba oo weligiisa live soo gelin live usoo galay waa dareemay horta waa reer soos ahaan ma fahantay zaaid wixii jiray inaan sheegno zaaid waxa waaye de hani waa ninkii yaqaano waxa waaye de ciyaalka xaafadda ahayd ما شاء الله والي قناع عبد السلام سيدو كله يا مركز قاري نوليهن مركز ان شاء الله يوسف ادي هذا وما تنتهي سيدي معناها ما تنتهي سيدي وين معناها او فرينتان ميديا او قيب قادنيsid كل جوجر وكاغ ما دنيا ما ادي ayaan kaga mahadcelinaa adigana waxa way xaqna saaro waan walaalkay aadan ku salaamay Yusuf in sha Allah assalamu alaykum barnaamijkeeni waa kulli waa noo dhamaan rabaa insha Allah hal in labada ugu dambayso insha Allah aan ka gaarsiinaa kulley xilli dambe noo tahay sifamaadi cawil waa iga hurda caawa cawil waa iga hurday mukhtaar waaba ku raadinayay baadi mukhtaarow waa ku raadinayay soo dhawaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيتا ولكي. مختار سيتا عافمات كذا كورن.
والله الحمد لله يعني الحمد لله لا وين سلمنا لا بس أنا لونga أضيع time نقضي بدار وحول بيقصد بحين فاهم ma bidaar maaha tan waa waxoogaa shaambada iska dhacda waa iyo biyaha kuleelka dhimanaya سو صاحب يا لوني سلام مقول هذه وما سنتين أطوالي مخلا أم لنا مخلا ha دي أم لنا waa ku maqal ku soco waa ku maqalnaa go ahead dadka asxaabta rasuulka salaama oo kii dadka ku yaqaano iyo kuwa aan aqoonin aniga waa Faarax Cabdikariim waay asxaabta hore ay yaqaanaan wixii dabana kadaal ay yaqaanaan u maleena niyo walaashii ilaahay ha caafiyo ilaahay ha caafiyo waa wax aad anaga agtiino aad ugu weyn waa ma fahamtay ilmaha abtiga oo ahana ilaahay ma taqaanaa noo dhooro walaalkii Cabdisalaan insha Allah waa soo waca haduu ilaahay yiraahdo haduu maqlaayo inta waddankan imaaday isma maqalin walaashay laakiin xaaladeedu waa la socday waxa hadda social media ka jirana wax yani wax saas u sii weyn ma ahan because walaashay inay Cabdisalaan ilmo u dhashay qof walba yaqaan aniga kula hadlaya ka marqaati kacaayo ilmaha abtigu ahaana in walaashay inkirtana xogaa waa wax aad anaga noo taabanayo waay insha Allah ha loo soo duceeyo walaashay way xogaa xanuunna waa iska jiraa wixii jirana resource marqaati ligama warrabo adinkaa meesha joogtiinba si fiican laakiin wixii oo ducaa ku soo dara asxaabtana waa ni salaama insha Allah walaalkii Cabdisalaan igu salaama waa soo waca ilmaha abtiga oo ana igu salaam insha Allah salaamullahi calayk walaalkay aad iyo aad u mahadsan tahay dad badan aan noogu jiro kulley sidii aad noogu qeexday si fiican ay u maqleen bulshada Soomaaliyeed insha Allah aadan kaaga mahad celinayna insha Allah ay salaam calaykum hal ilaa liibaan hamadaga shaqadii hal ilaa Yusuf hal ilaa reer soos keliya ma ahniyo reer soos keliya meesha ma ahe reer soos keliya waxaa loo dhahay waxaa waaye iyakiya xaaladda iyo wax walba ay ogyihiin ma fahan macnaa si kale yaan loo qaadanin si kale yaanan loo qaadanin reer soos keliya ma ahan ilaahay caafiyo insha Allah saasaan leenahay السلام عليكم ماذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيو عولا كوها السلام عويل عليكم ما يهيسا اوكي السلام عليكم ما حد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عويل سو دواو ايوه يا عويل واكو مغلا كسع ولالكي كسع عافماتك وفي عندها سوما انتي غوري السلام عليكم سلام الله عليك ودوادين على كل السلام عليكم وقت دheer isku dambeeyay adiga waa la kala dhumay liyo waqti dheer isku kan dambeysay marka insha Allah kulli hadaan caawis aragno horta waa farxad weyn ma fahan alxamdulillah marka dee caawo wixii adi saacadan ku soo jeediyay anakana saacadan na soo jeediyay horta waa dareemay oo live loo soo galo ma garato rosti adiga ka ciyaartay ها هست الشدنات إلى حد مسكحة ذكية يرويسو وحال مركا إن شاء الله وحاول ترى تغفلك كفتك أنا أكفتنا مركا بل إن شاء الله وعن كهرباء ددوينها نيو هورتا أرنتان إلى إيميل كوريسو كما جيفانينو هيرسوس أول بو اسكو دومنايين اسكو هبر وعنينا tan arrintan arrin aan yeelayna ma ahan marka waxaan rabaa arrintan inaad xoogaha ummadda xoogaha u sheegtid wixii jiro ma fahan hani muumin maxamed iyo Cabdisalaan wuxuu jecel kaliya xataa ma ahan waa gartay xaalkooda xaal dheer oo ahay maasha Allah
hadda waxa waaye haniyo gabadha gacanta ku haysan jirtay wiilkii yaraay haddayba leedahay weligay lama guursan si fiican jacayl iyo aroos ma jiraba si fiican qofta ku taas cawrjaga ma taqaanid gawar ma taas anima yeelay cawil ma ka saay ma ba soconaysa taase maasha allah ilaahayna la ogyahay hani maxamed cabdaan xaaskiisa ahayd 8 caruur ee u dhashay ilaa arooskeedii bilaaw ilaa dhamaad intaba waa haya fahanti si fiican walaasheen waxaa nooga baahan tahay maadaama ay xanuunsan tahay duco in loo duceeyo si fiican u duceyna dhammaanteen arrinkan ka wajiifa karna maaha si fiican habeenii maalin waa taagnaanina si fiican waan u taagnaa doona insha allah maasha allah walaalkay inta masaajida ku taal ana ugu soo joogna insha allah insha allah arrin aad iyo aad u fiican waaye arrintan gaar allah siyaasino aad qalbi furan waaye si fiican asli garabkiisa taagana dhammaan walaalkii waaye ayadana walaalkii waaye meel lagu hari karo ma lahan si fiican toos oo dhan waa walaalo meel lagu kala hari kara ma laha reer soos hal faraan ahayn ma fahantay hal faraan nahay waan ahaa doonaa insha allah walaalkay annagana kolley kama jiifan doono barnaamijkanna saasaan u wadaynaa habeenii maalin waa tagnaa doonaa insha allah saasaan noo ballan aad iyo aad u mahadsantahay walaalkay waqtigii aad soo gelisay ma fahanta adigana maama diyaar waqti kastaba diyaara ku yahay saacada joogo gurigeyga ma joogo aniga si fiican si fiican leeyta tahay halkaana ka saxa waay wallahi aad ma saas waay qof walba xanuunka soo kacashay waa saas حتى مش هيك حتى واحنا بقى او تحت مسيح سفيان سفيان waxaan ila joogo geesay سفيان waxaan aad ugu dhawaay waagi kaamiro ku ay dadka qolka xagee ku jira okay mana la hadli karaa geesay isaga diyaar waa okay noogu dhiib aad u mahadsan yahay kumaado masuul sar waa fiicanahay xoogaa haddaa isku aadin kartid meel yar oo iftiin ah mugdiya wejigaada mugdi waay maya hadda ku jira bes meeshaas taagnaa okay waa hadli kartaa marka ku soco wallahi niyo horta arrinkan wuxuu ku fiicnay arrinkan laga ma fahamtay dhib male maalin caddayna waa soo gelaynaa habeenna waa la soo gelaa maalinna dadkii oo joogo dhan aad soo gelaysiin ma fahantay maya saas waaye saaxiibkeyo saas waaye walaasheen waa u duceeyay ma fahamtay si fiican wax kaloo dhana ma waxaan leenahay lagu fogaani dumiya lagu fogaani si fiican meel lagu dhaxlayana ma jirto si fiican ummadana wallahi intaana cadday 8 saac habeenimo xaafad soo jeedo oo arrinka intaana ugu fiican dadka caddayn ma fahamtay maya caddeyntan waaba dhaaftay caddeyn waa dhaaftay waayo ilaa hadda ka baxdid intaasoo qofaa taagan oo markhaati oo gacanta soo taaganahay oo leh marka caddeyntan ma u baahno iyo hadal kaloo lasla dhex mara meesha ma bayaalaanba insha allah arrintan saacadda hadlaya cawil oo soo lugay ma fahamtay marka insha allah ilaa ay si ka naqanayso insha allah mana ka jiifanayno waana wadaynaa insha allah ma fahamtay salaatay dhammaan xabta reesoosna waxaa kala dardaarmaa aflagaada ma jirto maya haddayaan diiday wax aflagaadaa mise qof oo lagu qaldamaayo mise qof oo aan wax dhehayno barnaamijkeena mamnuucu ka yahay reer soos aflagaada maba yaqaanaan ma fahmi anaga reer soos ah si ilaah nugula ogyahay si qalbi furan si wadajir ah ayaan shaqeynaa laakiin ma rabno aflagaado maama aflagaado shuqulku ma lihiniyow aad iyo aad aa idin salaamaa xilli dambe idin tahay waan soo qabanaynaa insha allah hadduu alla maalin caddayna waa nooga dhiga barnaamijka aad wala badan yahay asxaabta badana waa taqa dad badan laga maqan diyaar dadkii soo aruuri wixii waa yeeladii waalidiintii kulligii soo diyaaran xasuustaa maad waxaan xasuustaa najma maalinta dheraysay horada maalinta dheraysay najma wareega maarta wareegii oo isbitaalka ahaa meesha keena iyaa lagula shubay si fiican raggii safnaaga ku jira aniga meesha jooga si fiican marka hadda iga hor muuqataaba
marka ma insha Allah adi ma maal cadeyn waa qabanaynaa kulley dadka soo diyaari wixii kaloo marqaati kaloo naga dhimana noo soo diyaari dadweynaha Soomaaliyeedna waxaan rajeynaa intaan aan ku filan intii oo marqaatigi oo la leeyahay bas way la leeyahay intaan aan ku filan ma fahmi ما شاء الله ما شاء الله marka intaas ugu taagana insha Allah wixii saacada u sheegno aada u mahadsantahay walaalkay dadkan kala hal laba soo qabana anakana waa sii jiifanayna wixii akhbaar aan waa ismaqlaynaa insha Allah assalaamu calaykum ay Soomaali maxamed ay meel walba aad joogtiin oo u jeedin in marqaatiyaashi la celcelino la leeyahay sug ma fahmi marka intaan marqaati ah u maleynaa inay soo bixi doonaan in ka badan in la filayo aan u maleynaa insha Allah kulley barnaamijkeena gabagabo waaye insha Allah kulley waxaan isaga tegaynaa caafimaad iyo wanaag intii hawada aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu